Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh, dear brothers and sisters. Welcome to our YouTube channel, Osman Puncher, for learning or studying the English language. Walaalayaal kusoo dhawaada barashada luqadda Englishka oo aad ka baranaysaan channelkeena Osman Puncher. Waxaana halkan idinkugu soo gudbinayo aniga oo ah teacher Osman Abdulqaadir Abubakar Nuurshe Puncher. Cashiradeeni hore waxaan u maleynayaa inaa in badan soo muraajaceyseen. Maantana waxaan qaadanaynaa cashirkeeni 7aad guud ahaan luqadda Englishka, gaar ahaan cashirkeeni 5aad ee grammarka. Shalay waxaan qaadanay grammar, maantana waxaan qaadanaynaa isla grammar, maadaama laba cashar oo aan la kala reebi karin ay yihiin. Sidaa daraadeed marka waxaan rajeynayaa inaad in badan isla socon doono. cashirkeeni shalayto haddaan idin xasuusiyo wuxuu ahaa possessive adjectives. marka waxaan u maleynayaa badankiin inaad fahamteen, oo maanta haddii lagu dhaho possessive adjectives maxay yihiin inaad fahmi kartid oo aad hore ka sheegi kartid inta ay yihiin. maantana waxaan qaadanaynaa qeybaheeni hordhaca grammarka ayaan ku jirnaa. Grammarka hordhaciisa qaababkan u kala qaadanayna waxay ahaayeen inaan markii hore qaadanayna subjective pronoun, subjective pronouns, possessive adjectives. haddana waxaan qaadanaynaa possessive pronouns. cashirkeena maanta waa possessive pronouns. Possessive pronouns marka waxa weeyaan possessive shalay waa soo aragteen oo waxaa kusoo qaadanay inay yihiin wax tilmaamayo lahaasho, wax tilmaamayo inuu yahay. maantana waxaan idin sheegayaa possessive inuu yahay lahaasho, laakiin waxaa isbedelay. shalay wuxuu ahaa possessive adjectives, sifooyinka lahaashaha, laakiin maanta waa possessive pronouns. Pronouns waa magacuyaalayaasha lahaashaha, magacuyaalayaasha lahaashaha. kuwii shalay waxay ahaayeen lahaasho oo sifo ah, kuwaana waa magacuyaalayaal oo ah lahaasho. inaad fahamtid isku day, ha isku sii mashquulinin. laakiin haddii lagu dhaho possessive pronouns maxay yihiin, possessive adjectives maxay yihiin, in aad kala sheegi kartid. Possessive adjective waa 1 2 3 4 5 6 todobadaas. Possessive pronounsna waa 6daas inaad dhihi kartid aan ka rabo hadduu ay beedmo. marka possessive pronouns waa magacuyaalayaasha lahaashaha. okay, waxaan qaadanaynaa marka lahaashayaasha marka way kala duwan yihiin. Possessive adjective waxaan arki jirnay markii aad my aad dhahayd oo kale ama our, waxaa ku xigsan jiray magacii ama wixii aad laheedaa ku xigsan jiray. laakiin midka kale ama possessive pronounku waa ka duwan yahay. Possessive pronounku asaga ayaa u dambeeyo, shayga aa laheed ayaa soo horeeyo, shayga aa laheed ayaa soo horeeyo. haddana shayga aa laheed iyo possessive pronounku mar walba waxaa isku xirayaan sida of oo kale, ama waxaa isku xirayo in la keeno verbs to be-yada, ficil ahaashayaasha in meesha ay yimaadaan. taasaa marka isku xir ahaan auxiliary verbskaas ayaa isku xir ay ku sameynayaan. marka adigu ha ku jahwareerin, maadaama basic grammar oo bilow aad tahay. waxaa lagaaga baahan yahay wixii lagu sheego maanta inaad maskaxda ku qabatid, si cashirada soo socdaana aad macnaha aad ugu fahmi, aad macnaha aad u fahmid, si aad ula qabsan doontid cashirada soo socdaana aad ula qabsatid macnaha. waxaan qaadanaynaa marka 6 waayo ayaga, oo waayo it is looma isticmaalo possessive pronoun. booska aad ugu isticmaalayd possessive pronoun ahaan waxaa mar walba u isticmaali kartaa as a possessive adjective ahaan. marka ayagu waa 6. marka possessive pronounsku maxay yihiin? waa mine, mine oo ah waxayga. hore waxaad usoo aragtay my oo waxayga ah oo possessive adjective ah. hadda waxaad baranaysaa mine oo ah waxayga. ours oo ah ours, ours oo ah waxeena, ours oo ah waxeena. our waa waxeena, ours waa waxeena ayaguna. our waa possessive adjective, ours waa possessive pronoun. saas u kala faham please. theirs waa waxooda oo possessive pronoun ah. theirs
theirs waa waxooda oo waxooda oo ayaga wax ay leeyihiin theirs. Their waa waxooda waa possessive adjective. Theirs s oo kaliya lagu daray waa waxooda oo possessive pronoun laakiin qaabka loo isticmaalayo kala duwan tusaalayaashan ku fahmi doonaa insha Allah. Yours waxaaga. Yours wixiina ayagana s oo kaliya lagu darayaa. Hers waa waxeeda marka hore her ahead hadda waa hers waa waxeeda marka his waa wixiisa marka his isma bedelaysa marka haddii lagu dhaho ereyga aanan isbedelin possessive adjective iyo possessive pronoun sheeg haddii lagu dhaho wuxuu noqonayaa waa his. inta kale laakiin sida tusaale ahaan our, their, your iyo her oo ahaa ii sheeg maxaa la yiraahdaa possessive adjective ayagu s oo kaliya lagu darayaa markii possessive pronoun la isticmaalayo. intaasna maskaxda ku hay laakiin my si directly wuxuu iskugu bedele mine oo waxayga. okay marka waxaan rabaa inaan isla fahanno mine, ours, theirs, yours, hers, his waa lahaasho waana possessive pronouns. okay examples aan marka qaadanaynaa oo tusaalooyin. hore waxaan usoo baran jirnay my car oo gaarigayga oo possessive adjective laakiin maanta waxaan qaadanaynaa possessive pronouns oo the car gaarigu is mine waa midkayga ama that car gaarigaas is mine waa kayga. mineka ugu dambeysa marka laakiin possessive pronoun sidaas weeyaan. ama waxaad dhihi kartaa friend of mine saaxiibkay waxay la mid tahay my friend saaxiibkay ee la mid tahay. friend of mine iyo my friend waa isku mid marna saaxiibkaa la soo hormariye oo possessive pronounka la dambeysiyo waxaa la yiri friend of mine marna waxaa la yiri my friend oo sifadii lahaashaha ahayd oo possessive adjectivekeeda la soo hormariyay oo waxaa la yiri my friend. marka farqiyada u dhaxeeyo waa noocaas. okay marka examples waxaan qaadanaynaa marka oo possessive pronouns. waxaan leenahay that car gaarigaasi is mine waa midkayga. that teacher macalinkaas is waa ours macalinkeena. ama waxaad dhihi kartaa those teachers macalimiintaas. that iyo those qaabka loo isticmaalayo waa soo aragnay. those teachers macalimiintaas are waa ours macalimiinteena. okay ama waxaan dhihi karnaa this house guriga kani is waa ours gurigeena. halka aan ka dhihi jirno possessive adjective markaa isticmaalayna our house gurigeena. okay those books buugaagtaasi are waa theirs kuwooda theirs kuwooda. okay this teacher macalinka kani is yours waa macalinkiina. tusaalaan macalin cusub aan ila keena waxaan dhihi karaa this is your teacher kani waa macalinkiina. ama waxaa lagu dhihi karaa this teacher macalinka kani is waa yours macalinkiina. this teacher is yours kani waa macalinkiina ama this is your teacher kani waa macalinkiina. okay labadaas inaa kala fahamtaa umaleynaa. haddana that handbag boorsada taasi ama boorso gacmeedka oo dumarka weeyaan. that handbag boorsadaasi is waa hers boorsadeeda. hers teeda. that handbag is hers taa boorsadaasi waa teeda. way la fahamteen aan umaleynaa. waxaan kaloo isticmaali karnaa these
cars gaariyadan ama gawaaridan are his waa gawaaridiisa. These cars are his gawaaridan waa gawaaridiisa. ama this friend saaxiibka kani is his waa saaxiibkiis. marka inta badan sidaasaa loo isticmaalaa possessive pronouns gadaal ayay galaan ayagu. marka waxaan doonayaa isbarbardhig inaan ku sameyno oo macnaha possessive examples inaan ka bixino oo possessive adjectives ah iyo possessive pronouns ah. This is my car kani waa gaarigayga. This car is mine. Gaariga kani waa midkayga. This is our house kani waa gurigeena. This house is ours. Guriga kani waa keena. Those are their books. Kuwaasi waa buugaagtooda. Those books are theirs. Buugaagtaasi waa kuwooda. This is your teacher. Kani waa macalinkaaga. This teacher is yours. Macalinka kani waa midkaaga. Macalinka kani waa macalinkaaga. This is your teacher. Kani waa macalinkiina. This teacher is yours. Macalinka kani waa kiina. That is her handbag. Taasi waa boorsadeeda. That handbag is hers. Boorsadaasi waa teeda. These are his toys. Kuwaani waa boombalayashiisa. These toys boombalayashatani are his waa kuwiisa. marka waxaan rabaa marka inaan isla fiirino haddana my possessive adjective iyo possessive pronoun inaan haddana aad u kala fahmno. My, mine, our, ours, their, theirs, your, yours, her, hers, his, isma bedelayso. It is oo ah wixiisa malaha marka possessive pronoun it's malaha. marka waxaan u maleynayaa inaan cashirkeeni kani aad u fahamteen. marka waxaan idinka rabaa inaad soo qortaan 2 jumladood aan idin siin doono isla cashirkan haddii aad wax ka fahamtay. kani waa wiilkayga. wiilka aad dhashid waxaa la dhahaa son ayaa la dhahaa son. waa inaad dhahdaa marka wiilkayga. iyo waxaan kaa rabaa inaad dhahdid gabadha tani waa mideeda. gabadha tani waa mideeda. labada jumladood kaa rabaa waxa weeyaan kani waa wiilkayga iyo inaad dhahdid gabadha tani waa mideeda. gabadha dhashid wixii la dhaho horaa ku soo baray cashirkii family ee ahaa ee conversationka aan ku soo qaadanay. please marka cashiradii hore muraajaca ku sameey. marka gabadhi tani waa mideeda. labada jumladood inaan qortay isku day commentiga. waa mahadsantihiin. anigoo ah teacher Osman Abdulqaadir Banjir waxaan idin leeyahay waxbarashada ha lagu dadaalo. fursadaada kaga faa'iideyso inaad wax baratid. waxaana idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.